السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركلة سود وواده أدي أدا ومهد سنتهين مقال كان وحربا إنا ندي كل وداغو ورئيسي أن لي لنا يو إن درول وبر أو مقالة سيالة قبل كواشنطن دقن إسلامر كان بشي اللحات برتمهدي سنة كان وبشي جون وقبر عدانا هو سوق عضي كو إيديسي إنو كفصدي لكن dacwadii hadda lagu waayay kadib markii community-ga Soomaalida ah ee degan Seattle Washington ay qareen u qabteen. Haddaba qadka waxaa ku jira Axmed Xasan Cali oo ah darawalkii la eedeeyay gabadhiisa Madiina iyo Safiyo oo kamid ah bulshada degan magaalada Seattle oo dadkii u kacay isla markaana qareenka u qabtay kamid ah. Bal arrintaasi sida ay ku dhacday halka la isla maray iyo sida ay ku soo gabagabowday ayaan rabaa inaan wareysigan aan idinku la wadaago. marka hore bal waxaan ku hormarayaa Axmed soo dhawow bal marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa maalintaasi sida ay wax u dhaceen qof ayaad soo qaaday gabar cadaan ah oo aad gurigeeda u waday waxa maxkamadda markii lagu soo taagay eedeymaha qoysku ay jeedinayeen ahayd in aad right-kii aad dhamaysay adigoon gaarin goobtii aad qofka u waday oo meel cidla aad ku leexisay sidaadna aad isku dayaysay in gabadhaasi aad kufsato waa sida ay kugu soo eedeeyeen waliba qoyskeediina ay telefonkeedii tracking ku soo sameeyeen oo goobtii ay kugu yimaadeen dhaawacna ay ku geysteen bal maalintaasi sida ay wax u dhaceen bal warbixin kooban naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim wal cilmi wad mahadsan tahay marka hore marka labaad ilaahay baa mahad iska leh walaal habeenkaas bisha June ay 15keediba waxaan ka qaaday qof customer eleborkan ka qaaday qofka customerka ah abaar baan waday ilaa 45 minutes qiyaastii qofka markaan dejiyay maalinta gabadhan koolkeeda ii soo dhacay gabadhii baan meel baan qaaday adreskii u socotay markaan joogay waxay ugu tiri please waxay dhaafin meel laba block u jirta gurigeeda ay tiri guriga waa kan bay tiri sax adreska waa sax laakiin waxay dhaafay ugu tiri waa waqti dambe qof dumarna way ahayd sidii baan walaalka yeelay meeshii ay tilmaantay markaan gaaray kolkii indhibaar macnaa kolkii waa dhamaaday marka intaan joogno ayada fiiristay waxay tiri walaal haddana wadadan koona halka iigii waxaan ku yiri kolkii waa dhamaaday abkiina waan xiray inta kadib waxaan ku yiri ma fasax kuma sii wadi karo maadaama maaragtay aan abki xiray marka anyway waan ka sii haddana meeshii ay rabtay oo ii tilmaantay baan markaan gaaray on within 1 minute mise 2 minutes aan taagnaaba waxay soo weeraray niman ilaa 3 mise 4 qiyaastii aan ku qiyaasayo marka waa arrintu sidaas u dhacday marka ay ku soo weerarayeen wali kursiga darawalka miyaad ku fadhisay ayaduna gadaal ayay fadhisay aniga steering-kan fadhiyaa iyaduna gadaal bay fadhidaa yes nacam waa gartay markay ku soo weerareen marka maxay dhibaatahay ku geysteen wala nimanka markay soo weerarayaan kow haday yihiin anu ma filin horta gabadha inay qoys leeyihiin laakiin waxaan filayaa niman tuugo caadi maaragtay soo weerarinayaan baan iska qiyaasay markii hore laakiin markii dambe aan ogaaday nimankan maaragtay niman arrin kale wata inay ayeen kow gaari markay soo weerareen inna wuxuu ka soo galay anka darawalku dhankii aan fadhiyo gaari maaragtay ridda albaabkii uu soo furay inna wuxuu soo furay ilankii dhankii baasinjeerka oo maaragtay qaybta hore ah actionkii ugu horreeyay ay sameeyeen waxay telefonka iga dafeen waa gartay telefonka markuu uberka abka u dansay ay arkeen way xanaaqeen maaragtay ereyxun ay marka ay ku hadleen waa gartay macnaha ay ka caroodeen telefon abka dansan bay ka caroodeen marka waxay intaa ka dambeysay gacan qaad bay bilaabeen oo inay gacan qaadaan waana saddex nin ilaa 4 nin ay ahaayeen intaad ka xasuusato ilaa 4 qof baan qiyaasay ilaa 4 saddex waan uba 4 nin ahayn waa macquul markaas kadib iyaga miya booliska wacay marka halkii may booliska ku waceen walaal booliska sida la leeyahay anigu horta markii gacan qaadku ay bilaabeen waxbaa dabana iska difaaco 4 ay tambateen markaan muddo isgaraacaynay waa nag out bay iga dhigeen macnaha waa taagan ka dhacay waa gartay markaan soo baraarugay waxaan soo baraarugay gaarigayga shidan oo meesha yaalla iyo aniga kaliya waa gartay gabadhii aan wadayna gaarigu ma saarna way ka degtay qoladii soo wartay meesha waa ka tageen waa gartay adigoo dhulka yaallay ka tageen waliga kaligay baan ahay waa gartay anoo marka dhaawac ah oo wajigu dhigay baan meesha ka soo dhaqaaqay iyo markaan socday ilaa 5 ilaa 7 minutes markaan socday qiyaastii baa boolis uu soo shitay wadadaan ka digay boolis la yimi
anigu dhiigay maxaa kuu dhacay wala tuuga soo wartay waan ku marka anu tuugan baan u haystay waa gartay boolisku markuu wuxuu gaari ma wadi kartid inta baan baa tahay ambulance waan kugu yeeray isbitaal baa lagu geynayaa waa gartay waxaan ku inuu telefoon ma haysto reerkayga igama warhayaan ima lagu reerkaadan waa ku leeyaan safe baa tahay isaga dhig gaarigan ambulance baan kugu hayo isbitaalka iska aad oo telefonkii ma iyagaa kaa qaatay telefoonku way qaateen nacam waa gartay telefoonka way la tageen isbitaalka marka sidaan waraa isbitaal ku tegey isbitaalkii waa xoogaa dhaawacii maaragtay meelihii iga dhageen subaxii markuu waaga bariina waxaa ii yimi maaragtay qolo kaloo bolis ah sidaas waxay u yidhahdeen nihow waa lagu soo eedeeyey marka annaga waxay dhaheen shaqo kuma lihin waxaan maanta waa sabti iyo axad waan ku haynaynaa isniintan maxkamadda tegeysa waa gartay warka isniintii oo 17 bisha ahayd maxkamadda lagu soo taagay baan maxkamadda liigay nacam waa gartay maxaa markaasi adigoo waxba la socon maxaa lagugu eedeeyay mise boolisku markii ay ku wadayeen waa ay ku sheegeen in arrintan lagugu soo eedeeyay iyagu markaa waxaas lagu soo eedeeyeen oran laakiin waa lagu soo eedeeyay bay yiraahdeen waxa lagu soo eedeeyay sheegay ma waxay yiraahdeen mandayda maxkamadda ku ogaanaysaa waa gartay oo marka sabti iyo xadna waad xirnay sabti xad meeshii seelkan ku jiray macnaha xad meesha lagu hayo dadka maaragtay eedeysanayaasha adigoo waliba dhaawac kugu yaalo anigoo dhaawac u yaalo jeelku weynaan ahayn laakiin meesha eedeynaysa lagu hayo lagu hayay sabti xad baan meesha ku jiray isniintii baa marka maaragtay meesha laga soo daayay maaragtay damaradan kaga soo baxay waa gartay maxkamadda markii lagu geeyay marka oo lagu yiri waxaas ku eedeysan tahay sidee kula noqotay waliba waxa la ii sheegay maalinta arrintu ay dhacaysay inaad soomaneed waa soomanaa nacam waraa iskaalagta waan soomanaa waa gartay maxkamaddii lagu geeyay marka isniintii maxkamaddii damay baa lagu soo daayay looyarka baa tegey maalinta ayadeeda laakiin dib dambaan maxkamadda ka tegey waxaa lagu yidhi eedaha noocaas waa lagu haystaa axmed maxaa ka jira ma jirtaan ku yidhi eedaas anuu ma gelin dambi noocaas ma gelin waa gartay marka waxaa intaa ka dambeeyey maxkamadaha ballan bay noo dhigeen dhowr jeerna waa tagnay dhowr jeerna maaragtay way miskaayeen qoladii kale ugu dambeyn taariikh kowdii bishan oktoobar daraad ahayd oo waxay soo wacay looyarkayga anigoo ballansan taariikh 3 maanta 3 baan ballan ku lahaa maxkamadda waa gartay laakiin 3dii oo la gaarin bishii taariikh koodii buu soo wacay mar inoo ahayd 10 subaxnimo buu soo wacay looyarkii uu yidhi axmed shalay bay maxkamadda fariisteen oo mandaydii dismiss kiiskeeda waxa go'aan bay ka gaareen oo kiiska dismiss case baa laga dhigay waa gartay marka goorma lugta lagaaga xiray GPS kan dhaqdhaqaaqada lagugu la soconayo walaal waxa laga xiray GPS waxa laga xiray maalintan ka soo baxay siniin baan filayaa raadi waa laga xiray lugta marka dhaqdhaqaaqada maxaa lagugu yiri ilaa intee tagi kartaa lagugu yiri waxaa lagu yiri masaajidka iyo meelaha muhiimka ah sida isbitaalada oo kale waad u fasaxan tahay haddii extra u baahatana waa inaad soo howlgaraysaan soo wacdaa marka uberkuna abkii ma kaa xirteen markii arrintan lagugu soo eedeeyay uberka waa automatically way xirteen nacam waa gartay marka looyarkii ku soo wacay isniintii wuxuu ku yiri kiiskaadii gabi ahaanba meesha waa laga saaray oo lugtiina goorma laga furay GPS-kii kugu xirnaa waxa laga furay iyadana second maalinta ku xigtay maalinta soo wacay maalinta ku xigtay baa laga furay oo talaadada ahayd oo shalay labadii ahay waa tahay axmed waa kugu soo laaban doonaa gabadhaada madiina ayaa qadka ku jirta madiina goormaad ogaatay in aabbaha la xiray oo aad arrintaasi ogaatay markii arrintan ay dhacday kadib magacayga madiina maxamed ali dhaxaa hooyo waxay soo wacatay maalinta Saturday June 15 adiga waxay soo wacday around 6 in the morning waa gartay waxa telefoon qabanayo si xalku u baxay wali muusan marka waan wacnay telefoonka qof qabanayo male marka wiilka walaalkay yiriska wuxuu haystaa sharing locationka markaan fiirino wuxuu noo sheegaa Olympia meel adi oo marka odagayaan kiciye waxaan ku soo baxay adeer la waysan yahay oo share locationka meesha jira adi gaarigan qaadnay ani hooyo iyo wiilasha walaalahay iyo odagayga raacnay waan baxnay habbaar markaan soconay 45 minutes ma uu sheegay meesha bas waxaan dhahay saygarayna booliisna wacno booliiska markaan wacnay waxay wajeen magaciis
iyo dhalashadiisa iyo soo u sheegnay xidhan ku soo wacayna marka waan sugnay anaga meesha markaan gaarnay meesha mugdu eegyaano booliis waan ugu soo celiyeen booliis aniga la hadla waxaan arkay local number na soo wacay marka booliis uu dhahay aabaha waa helnay laakiin wuu xiran yahay waa gartay markaan ku leeyahay reasonka kidnap iyo rape baa lagu haystaa waa gartay sidee kula noqotay marka arrintaasi markii lagu yiri aabaha waxa lagu haystaa kufsi iyo afduub geystay waan xishookaan noqday waxaan ku dhahay aabahaygi waxas ma kasaayo qof fiican waaye qof weyn waaye weligiis iska dhaaf asaga diinteena waxas ma kasaayaan ku dhahay adi booliiska lama murme waxay ka bacdi adeerkaya aabaha soo wacay markii soo waxaan ku dhahay ayo okay hawdaha wali dile marka meeshan aan ku jira telefoonka uu ka go'ay lawyerkii waxaan aan raadinay wax ku celiyay booliiskan ku celiyay cellphone-keeda ay soo wacdeen booliiskan ku dhahay aabeena ma tagi karnaa mas'uuliyad ma tagi kartin waa weekend waaye anagana wax ma ku dhigana number aan ku siinayna numberkii aan wacay numberkii qof iga qabsaday male hadana booliiskii aan ku celiyay isla maalintii aan ku dhahay maadaama waxaas la dhahay DNA-ka ma la qaatay waxay ugu dhahday DNA-ka waa laga qaaday laakiin qofkii kalena DNA-ka wuu diiday halkamanda qofka loo diiday qofka u diiday qofkana oo damage lagu gaarsiiyo oo hadana xiran yahay why I'm sorry wada ani wax ku jawaabi kari waa gartay kan lawyer no haystaa kan ku dhahay lawyer kasna marabna anka lawyer aan ka haysanayna telefoonka meesha ku joogsanani maamada booliska waa taa aad ma xasantaa Madiina Safiya soo dhow adiga Safiya community ayaad kamid ahayd Axmed waa taqiinay qof aad taqaan oo ahaa arrintan markii aad maqasheen kadib community-gu waa ay kaceen si bal arrintan looga been abuurto Axmed aad lawyer loogu qabtay kadibna ugu dambeyntii kiiskiisii waatay hadda meesha laga saaray 3 maalin ka hor sidee community-gu arrintan ugu kacday sidee sidii ku suura gashay inaad magaca Axmed aad ka dhigtaan qof aan eed lahayn السلام عليكم مقعيقة صفية عمر عيال لها أحمد أنك وحان إهن فاميلي فرينا إهن قبل حاسكيس أيان صاحبنا هاي قلبي إتوان صننا هالحافظة وذا دقنين أحمد نقاني قفوحوها ما شاء الله دقن وكوميونيتي احترام كله ودين إلهي سبحانه وتعالى ووديقي مركان مقلي أرنكاس مقلي وأمين سنة أحمد إنه صنوحها سوبنين شوقتين وإهد أنت كوميونيتي وأحمد تقاني وناقا لغو يقانا مساجد وناقا لغو يقانا ضد كدن ويوضقين مقالدان marka arinkii la maqlay aruurtiisa khayr Allah siiyo walaalkiis ayaa lawyer markaas u qabteen oo si degdeg ah markaas maalintii Isniintii ahayd lawyer isla maalintii subaxnimadii early morning-kii loo qabtay lawyer sidii lawyerkii ugu tagay community-ga intii support gareynaysa ama ducaa ku support gareyso ama lawyer fee wixii ka bixin karaan way ka bixiyeen waxaan aaminsaneen inuusan marnaba uusan arrinkaas Axmed ka suurtoobeynin arrinkan inuu imaanayo anagu Ilaahay isku xireyno waan ogaan inuu insha Allah one day uu gacantaas furiyo ka soo noqonayo aadan ugu farxnay waxa ka soo baxay waxaan kaloo ku darayaa ama aan dad muslim ah oo Soomaali ah walaalkay ma ahan horta wadankan Mareykanka aan joogno illa qofka guilty laga dhaho wali qofkaas dambiile ma ahan yeah everybody is innocent until proven guilty why marka anaga Soomaali hadaan nahay social media TikTok intaasoo ilaa 3 bilood lagu wareejinayay waxa aan ka xumaaday waxay tahay mar labaad ayaan ooyay markii la xiran waa ooyay markii farxadaana waa ku ooyay because waxaan ku ooyay waxay tahay community-geeni oo ahayd in walaalkeena support gareeyo loo duceeyo inay ka sii been abuurtaan dadku ku waxaasmada ana aqaani waligu soo suubin jiray saano ahaa intaasoo wax ahaa subhanallah war aakhira la gala godira la gala aadan ugu farxana inaan adiga kula kulano si aan community-geena ugu sheegno war qaladkan waa dhacay weydiistan cafis weydiisan inta public-da shala ku haysan Axmed inta soo
dhaha walaalkeen hadduuna maqlaya hana cafiye dhaha adduunkan waa laga tagaaya wanan ilaahay loo hor istaagaya oo dadka cafinaya qof walaal eena erdigiisa iyo sharaftiisa qofkan wax ku eedeeya waa gaal ilaahay rasuulkiisa ma aaminsana dadka maalinta qiyaama ma aaminsana laakiin annaga muslimiinaan nahay in ilaahay qofkaan dembi ka galmay laga goynaya waa ognahay waa tahay safi aad u mahadsantahay axmed aan mar kale kugu soo laabto axmed taleefankaadii goormaa dib lagugu soo celiyey mise lagu soo celiyeyba walaal maya taleefonkii gaari weli dib laguma soo celinin looyarkan baa igu yiri next week baan hawshaa gelaynaa lagu yiri waa tahay hadda marka maadaama kiiskii dismiss la dhahay waxaad ii sheegtay dhowr jeer inaad maxkamadda tagteen oo dadkii idinsoo eedeeyeyna ay maxkamadda imaan waayeen imise maalmood ood maxkamadda tagteen iyaguna imaan waayeen intaanu 2 jeer baan tagnay on annaga tagnay 2 jeerna ballantu maaragtay dib baa loo dhigay markasta oo maaragtay ballan leen dib baa loo dhigay 4 times ballantu ahayd laakiin 2 kaliya aan tagnay annaga waa tahay marka waxaa hadda gabadha Madiina ii sheegtay gabadhaadu in ayagu DNA-da waa ognahay qofka haddii uu kufsi qof ku soo eedeeyo swabs ayaa laga qaadaa oo baaritaan ayaa lagu sameeyaa DNA-da arrintan inay dhacday marka sababta ay DNA-da u diideen macnaheedu waxay tahay inaysan meesha waxa eedda ay sheegayaan ba aysan jirin ba adiga maxaa baaritaan oo lagu sameeyay markii isbitaalka aad tagtay anigu intii baaritaan qof lagu sameyn karay way u sameeyeen waa gartay way qaadeen DNA-gaas way qaadeen testi wadan bay qaadeen de nimankan wax maaragtay wax run kuma aysan soconin waxay u diidayaan waxa wixii diwaal ogaanaya inay wax ka jirin waa tahay hadda marka maadaama kiiskaadii dismiss laga dhigay maxaad sharciga la tiigsanaysaan marka dadkii idin soo eedeeyey maadaama adiga 4 bilood aad shaqalaan ahayd GPS uu kugu xirnaa maxkamad lagu geeyey lagu xiray arrintaas oo idil maadaama hadda sumcadaadii iyo magacaadii meel looga dhacay ma doonaysaan inaad dadkaasi dacweysaan oo iyaga markaan aad maxkamadda la tiigsataan arrintaas xoogaa waa macnaha waa early waan isleeyahay ninka laga cilmiyow laakiin ma ku tala jirtaan insha Allah arrintaas community-ga waa kala tashan doonaa hadii ilaahay yiraahdo waa tahay aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin ba Safiya Cumar Axmed iyo sidoo kale Madiina waa idinka mahad celinaya wareysiga waana ku faraxsanahay in eedayntii beenta ahayd oo lagu soo eeday ugu dambeyntii ay been noqotay haddana aad xor tahay dhammaantiin ba waa idin mahad celinaya aad u mahadsantihiin sidoo kale shukran adigana waa mahadsantahay adina waa mahadsantahay thank you dhammaantiin